Komishinka qaranka ee xakamaynta AIDS-ka ayaa magaalada caasimadda Hargeysa waxa uu ku qabtay kulanka dhamaystirka iyo qabyo qoraalka istiraatiijiyadda qaranka ee wada xiriirka HIV/AIDS. Kulankani oo ay qayb ka ahaayeen warbaahinta kala duwan ee Somaliland ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii bulshada loo gaarsiin lahaa wacyigelin ka dhan ah xanuunkan iyo weliba sidii bulsho ahaan looga qayb qaadan lahaa daryeelka iyo ilaalinta dadka la nool xanuunkani. agaasimaha fulinta ee komishinka qaranka xakamaynta AIDS-ka mudane Axmed Cabdi Ismaaciil oo daafurka shirkani hadalla ka jeediyay isla markaasina si rasmi ah shirkani u furay ayaa waxa uu yiri inaan kulankan maanta isku nimaadno ujeedkuna waa sala soo tilmaamay oo ah komishinku inuu mas'uuliyadkiisa ay ka mid tahay inuu diyaariyo istiraatiijiyadaha lagu horumarinayo shaqada komishinka oo ah inuu xakamayn iyo joojin ku sameeyo fiditaanka xanuunka HIV/AIDS-ka. Sadarteed maanta si gaar ah waxaan soo abaarnay in bahda warbaahinta Somaliland haday tahay xukuumadda iyo madaxa banaanba aan isugu yeedno halkan waan doonay in aqligooda iyo cilmigooda looga faa'iideysto inaan wada diyaarino istiraatiijiyadda ama habka loo wada xiriirayo markaan doonno inaan ka hadalno xanuunka la yiraahdo HIV/AIDS-ka. Saxaafaddu waa cid ugu badan ee nagala shaqeysa wacyigelinta iyo fududeynta hawlaha. Sadarteed waxa weeye waxay nala noqotay inaan isla garanno hab aynu doonayno markaa wararka iyo barnaamijyada la xiriira xanuunkaas wixii la xiriira inaan isla garanno habka loo sii deynayo iyo habka loo baahinayo. Sadarteed maanta oo kulankan idinka gaar u idin yahay taas ayaan ku qaadan doonaa. Labada maalmood soo socdana waxaan ka faa'iideysan doonaa iyagana sidoo kale qaybaha dawladda oo ah wasaaradaha sida gaarka loo shaqeeya komishinka xakamaynta AIDS-ka iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga iyo kuwa localka labadaba ee la shaqeeya komishinka la shaqeeya. Marka maanta oo idinku si gaar ah adoo casuumantihiin insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa in documentkaas la soo gudbin doono oo la xiriira sidee baynu fariimaha iyo barnaamijyada iyo wararka aynu ka sii deynayno ama aynu ka baahinayno xanuunka HIV/AIDS-ka sidee baynu u sii deynaynaa ama qaabkee baynu u sameynaa istiraatiijiyad taa ka warramaysa ayaan doonaa marka aqligiina iyo cilmigiina maanta ay ku darsataan waad ku mahadsantihiin mar kale ka soo qaybgalkiina. waa Maxamed Andar, telefishinka MM Hargeysa.